Bismillah. Waxaan ku guda jirnay buugga maadada chemistry fasalka koowaad ee dugsiga sare. Waxaan ku guda jirnaa oo cutubkiisa koowaad. Waxaan ka soo hadalnay cashar koowaad iyo labaad ayaan ka soo hadalnay. Casharka ugu dambeeyay waxaan ugu soo hadalnay what is chemistry, waa maxay chemistry. sababta chemistry aan u baranayna ayaan ku soo baranay major branches of chemistry laamaha ugu waaweyn ee chemistry-ga ayaan ku soo barnay. dan casharka kan saddexaad waxaan ku baranaynaa 1.6 chemistry laboratory shaybaarka chemistry-ga. lesson objectives hadafyada casharkeena ama ujeedooyinka casharka. by the end dhamaadka of the lesson ee casharka the learner bartaha should be able in awoodi karaa to describe una qeexi karaa chemistry laboratory shaybaarka chemistry-ga. hadalka labaad waa explain waa inuu sharxi karaa the importance muhiimada of the laboratory in chemistry, muhiimada chemistry-ga shaybaarku uu leeyahay. di casharkeena u guda galno chemistry is an experimental science, waa cilmiga sayniska oo tijaabada. therefore it must have waa inuu yeeshaa ama waxaa waajib ah inuu yeesho specifically design room qol nashqadiisa gaar tahay. known as waxaan loo yaqaanaa laboratory shaybaar. weer halka oo chemicals ee kimikaalooyinka are stored lagu keedinayo and experiments lagu tijaabinayo are conducted laguna sameynayo waxaa loo yaqaana marka laboratory. waa weer halka are stored lagu keediyo and experiments tijaabooyinka are conducted laguna sameynayo waxaa loo yaqaanaa laboratory. Our chemistry is an experimental science, waa cilmiga sayniska oo tijaabada. therefore sidaad it must have waxaa waajib ah inuu yeesho a specifical design room qol nashqadiisu gaar tahay. known as waxaan loo yaqaanaa qolkaasi marka laboratory. okay, where waa chemical, waa halka chemicals are stored lagu keedinayo waa an experiments tijaabooyinka are conducted laguna sameynayo. neatness nadiifsanaanta and cleanliness iyo nadaafada on is very important. aad bay muhiim u tahay in laboratory shaybaarka aad bay muhiim ugu tahay. nadiifsanaanta iyo nadaafada aad bay muhiim ugu tahay shaybaarka. okay, 1.7 chemistry laboratory equipment qalabyada shaybaarka chemistry ayaan ku baranaynaa. lesson objectives hadafyada casharka ama ujeedooyinka casharka. by the end dhamaadka of the lesson ee casharka the learner bartaha should be able oo in awoodi karaa to classify uu kala saari karaa and name comma apparatus qalabyada caanka ah oo magacaabi karaa in the chemistry laboratory ee shaybaarka chemistry-ga. state waa inuu sheegi karaa hadafkeena labaad waaye the uses isticmaalka of comma apparatus qalabyada caanka ah in a laboratory in a chemistry laboratory shaybaarka chemistry-ga. casharkeen haddii aan sii wadano laboratories require a variety of equipments. shaybaarka wuxuu u baahan yahay qalabyo oo kala duwan and instrumentation iyo cabiraado to run tests laguna socodsiinayo tijaabooyinkan iyo research wax lagu baarayo. apparatus qalabka are
various tools waa qalab kala duwan waaye aan equipment used iyo qalabyada isticmaalayaan oo by scientists working in the laboratory saynisyahanada ka shaqeeya shaybaarka. They must be clean waxaa waajib ah inay nadiif ahaadaan aniyo checking lana hubiyaa before ka hor use inta aan la isticmaalin to be safety badbaadadooda ama badbaada ahaanshahooda aniyo should be washi lana dhaqaa ani stored careful si taxadarna ahna loo keediyaa after use kadib markii la isticmaalo to avoid si loogu fogaado contaminating your kimikaalooyinkaaga ama wasaqda kimikaalooyinkaaga after use markaad isticmaashid kadib to avoid si loogu fogaado contaminating wasaqeynta contaminating waaye wasta ay u taagan tahay waa wasaqeyn your kimikaalooyinkaaga wasaqeynta kimikaalooyinkaaga. The laboratory equipment qalabka shaybaarka is organized wuxuu u habeysay into 7 different groups 7 koox oo kala duwan. The laboratory equipment qalabka shaybaarka is organized wuxuu u habeysay into 7 different groups 7 kooxood oo kala duwan oo kala ah marka safety tools qalabyada badbaadada measuring tools qalabyada cabiritaanka heating tools qalabyada kuleelinta observing tools qalabyada indheenta holding and iyo grabbing tools qalabyada qabashada iyo heenta cutting tools qalabyada wax lagu jaro filtering tools qalabyada shaandheynta ama kala miiritaanka. waxaan kormeerayaa marka safety tools qalabyada badbaadada. Safety tools qalabyada badbaadada are materials waa walxo waaye that are used kuwaasoo la isticmaalo to keep si loo ilaaliyo the laboratory settings safety goobta shaybaarka ee badbaadada. Some of these materials qaar ka mid ah walxaha qalabyada badbaadada include waxaa ka mid ah safety goggle oo kiyaalaha badbaadada aya wash station waa barta ama meesha indhaha lagu dhaqo. Lab coating jaakada shaybaarka safety shower qaweyska badbaadada fire extinguisher qalabka dabdamiska protective gloves iyo gloveska gacmaha la gashado kuwaasoo marka waxyaabaha oo khatarta leh ka hortagayo. measuring tools qalabyada cabiritaanka are materials waa walxo la isticmaalo waayo to measure si loo cabiro different measurements cabiraado kala duwan. Some of them are qaar ka mid ah qalabyada wax lagu cabiro are marka waxay kala yihiin thermometer heerkulbeega beaker weelka oo beakerka graduated cylinders kulwada graduateska ah oo calaamadaysan nambarada leh Erlen Meyer flask waa tarmuus nooc ka mid ah oo
chemicals ka loo adeegsado waxa lagu cabiro volumetric flask iyo flaska volumetrics-ka oo mugga lagu cabiro observing tools qalabyada indhindheenta are materials waa walxo that allow you kuwaas ku ogolaanaya to have a look at substance inaad ku fiirisid walxo and different materials iyo walxo kala duwan. Some of them are qaar ka mid ah waa microscope ayaa ka mid ah qalabyada wax lagu indhindheeyo qaar ka mid ah waxaa ka mid ah microscope weynaysiga oo shaybaarka badanaa adeegsada microscope slide-yada microscope-ka wash glass muraayadaha wax lagu daawado battery dish iyo saxanka oo batteriga oo bakteeriyada lagu koriyo magnifying glass muraayada weynaysida heating tools qalabyada wax lagu kuleeyo are material used waa qalabyo la isticmaalo in the process hub of heating kuleen. Some of them are qaar ka mid ah waa benzene burner ka mid ah qalabka wax lagu gubo oo markii in wax la dilo rabo bakteeriyada oo in la dil rabo la adeegsado iyo in wax lagu kuleel rabo spirit lamp iyo digsiga oo spirit lamp loo yaqaan cutting tools qalabyada wax lagu jaro are materials waa walxo that have a sharp edge kuwaasoo leh marka haduudo oo af leh edge maxaa waa haduud sharp maxaa af which can penetrate kuwaasoo ka dusi kara ama duleelin kara oo amse dividing kiisayadana kala qaybin kara. For example waxaa ka mid ah tusaalaha dissecting incisors maqaska wax kala jeexa scalpel waa idina midda wax lagu jeexa oo lagu maqaar siiba ama in lagu kala jeexo holding and grabbing tools qalabyada wax lagu qabta wax qabta waxna heeya holding tools qalabyada waxaya are materials waa walxo that are used kuwaasoo loo isticmaalo to keep in lagu ilaaliyo thinkisayada in the right position waxaa goobta saxda ah ama meeshooda saxda ah aniga grabbing tools qalabyada wax lagu qabto are materials waa walxo that are used kuwaasoo loo isticmaalo to transfer service walxo in lagu kala wareejiyo from one place goob in laga wareejiyo to another goob kale loo wareejiyo. Some of the holding and grabbing tools are qaar ka mid ah qalabyada wax lagu qabto waxna lagu heeyo waxaa ka mid ah test tube with test tube brush tubeyada wax lagu tijaabiyo ama wax lagu baaro iyo waxna lagu dhaqo test tube raagis ayaa ka mid ah raaga tubeyada wax lagu baaro lagu haayo test tube holder waxaa ka mid ah tubeyada shay haayo oo holder ah tubeyada oo wax lagu baarahaaya tripod waa meesha digsiga la saaro saddex lugood ayuu leeyahay skibula waa qaadada wire gaasa iyo faashada siliga for service waa nooc ka mid ah maqaska oo maroojisiyada leh tweezer iyo qaybta oo wax lagu soo qabto idan birtaan wax lagu soo qabto waa for service markii qaliinkii la sameeyay ay la adeegsadaa togis maqaskan wax lagu xambaaro retort stand with calambi
أنا قيبت إذنه وهينيس وإذنه ريتورت وعلنيسا ستاندر بوس كذا وكينيسا with the كلامبي ده وشيء ده الاستعمال أي الوهينا يا أو سيدا تيوبسكا أو قار كميدا إيوه فلاسسكا إيوه فلترين تولس قلبيدا وحلوه شان دايو فلترين تولس قلبيدا وحلوه شان دايو materials وقلبيدا through إذا لو مرايا which a fluid basis through إذا لو مرايا which a fluid basis مرتانكا dareeraha to separate out matter si looga sooco matterka in suspension loogana hor istaago ama loogana hakiyo waxyaabaha makraga ah ayaa laga hor istaagaya example tusaale oo filter tools qalabyada wax lagu shaandheeyo marka waxay kala yihiin separating funnels duwaalada wax kala saarta filter paper waraaqda wax kala saarta ama waraaqda shaandhada funnel iyo duwaalada ama dublada okay hasad science mesh waxa ugu baxnay marka wax loo yaqaano qalabyada kala duwan shaybaarka isticmaalo hasad science calaamadaha khataraha يعني جودجين 1.8 lesson objectives هدفيدا موجوديدها 10 by the end dhammaadka of the lesson 10 the learner barta should be able in awood kara to identify and aqoonsan kara yani apply oo adeegsan kara hazard signs calaamadaha khataraha ani substance walax kasta oo that can cause risk sabab kara khatar to public safety badbaadada bulshada or environment deegaanka is called waxa loo yaqaan hazard materials walho khatar they are waxa jira universal science calaamado oo aan ama calaamado oo adduunka dhan laga aqoonsaday to indicate hazards kuwaasoo marka lagu calaamadeeyay ama lagu cadeeyay hazards khataraha anyo are known as waxa loo yaqaan marka hazard signs calaamadaha khatarta hazard signs calaamadaha khatarta are recognized by symbol designed waa nashqad oo calaamado la aqoonsan karo waa tuwan idoo si loogu digo about hazard doses wax ku saabsan khataraha oo ramta dangerous materials walxaha oo khatarta ah location meelaha oo ramsa objectives walxaha include ay kamid yihiin electric currents qolqolka danabka bosons sunta iyo radioactivities iyo shucaaca some of them are listed below qaar kamid ah waxa lagu tixay marka qaybta hoose waa kuwana marka healthy hazards khatarta caafimaadka flammable kuwa oo xulca oxide dioxide kuwa oxygen marka airkan ay guwanayaan irritants cununka gases under pressure gaseska lagu cadaadiyo gaseska la cadaadiyay explosives kuwa qarxa corrosives kuwa daxaleysta ama shay kale oo la falgala environmental toxicity sunta oo deegaanka acute toxicity sunta degdega ah corrosive waxa waaye waa daxaleysta kuwa daxaleysta okay laboratory safety rules heerarka badbaadada shaybaarka 1.9 waa lesson objectives hadafyadaha ama ujeedooyinka 10 by the end dhammaadka of the lesson 10 the learner bartaha should be able in awoodi karaa to describe waa inuu qeex karaan abala adeegsan karaa good laboratory behavior habdhaqanka shaybaarka ugu wanaagsan laboratories require great care shaybaarku wuxuu u baahan yahay taxadir weyn since maadaama they are agent flammable kuwa gubta combustible kuwa basa ama gubta leh combustible
explosive kuwa qarxa, corrosive kuwa daxaleesta, toxic kuwa sunta ah, ani biohazard materials iyo walxaha oo khataraha nool in there ka jira halkaas. To avoid si looga fogaado serious accidents shilalka halista ah, and save yourselves si loo badbaadiyo marka nafsadaada others iyo kuwa kale, and the property in the laboratories iyo shaybaarka hantidiisa si loo badbaadiyo. You need waxaad u baahan tahay marka to follow si aad u raacdo standard safety rules, heerar badbaado caadi ah oo la yaqaano, which include waxaa ka mid ah number 1 dress properly, si sax ah waa inaad u xirataa dhar for work marka aad ka shaqaynayso in the lab shaybaarka. maxaa marka dress properly, si sax waa inaad u xirataa dhar kuwa habboon for work marka aad ka shaqaynayso in the lab shaybaarka. Wear waa inaad xirataa enclosed shoes, kabo xiran. Wear enclosed shoes, kabo xiran waa inaad xirataa. And your lab coat, iyo dharka ama jaakada shaybaarka. Apron waa maro lewa. Afford waa maro laakiin oo cadaan ah oo loogu talagalay shaybaarka. Waa afford wearing shorts, waa inaad ka fogaataa waxyaabaha gaagaaban and skirts iyo goonooyinka. Number 2 never eat, marnaba waxaa ku cunin drink, waxna ha ku cabin or mise smoke qiiq ama sigaar ha ku cabin in the laboratory shaybaarka. Due waxaan u waanto the risky khataraha of the ingestion laqitaanka of chemical poisoning sunta kimikaaleed sunta kimikaalada. Number 3 cell phone usage, ha ku isticmaalin telefoon load talking aadna ha u qaylin ama ha u hadlin, and iyo running ha ku ordin, and your horse belay ha ku ciyaarin in the laboratory shaybaarka are strictly forbidden. amarka si adag ayaana loo mamnuucay. Number 4 never remove chemicals, marnaba ha siibin chemicalska oo ramise ada harmful materials walxaha kale ee waxyeelada leh from ka imaada the laboratory shaybaarka. marnaba macnaha ku siibin meel oo aan loo talagalin laga wada macnaha. Number 5 always had your chair take off gloves, marka aad siibtid gloveska oo gacmo gashiga, and wash your hands gacmaha dhaq before leaving the laboratory inta shaybaarka aan ka tagin. Okay, number 6 now aqoonso the location goobta of emergency degdega ah ayaa washes maxaa marka dhaqa and safety showers iyo qaweyska badbaada meesha qaweyska badbaadada, and how to use si loo isticmaalo them baro, si loo isticmaalo marka iyagana baro, si loo isticmaalo iyagana baro marka how sida to use si loo isticmaalo them iyaga. Number 7 if a chemical gets haddii ku helaan oo kimikaalo on your skin or your skin maqaarkaada oo ramse into your eyes indhahaaga ama ishaada, rinse ku dhaq with water biyo for at least ugu yaraan 15 minutes 15 daqiiqo. Report any accident immediately, sida ugu dhaqsiyaha badan u soo sheeg shil kasta to your teacher macalinkaaga. Report any accident immediately, sida ugu dhaqsiyaha badan u soo sheeg shil kasta to your teacher macalinkaaga u soo sheeg. Number 9 be aware, la soco of evacuation exists, meelaha laga baxo, and iyo fire extinguisher location iyo meelaha dabdamiska iyo use iyo isticmaalkooda. Always number 10 maxaa always had iyo jeer follow raac the teacher instruction amarada macalinkaaga, and iyo never walk alone,
kaliya marnaba ha shaqeynin in the laboratory shaybaarka kaliya ha ka shaqeyn marnaba okay si xooli ayaan ku waday hadii waxyaaba oo ay dhacaan bal insha Allah ila soo xiriira hal mar ayaan sharxay meela oo ku cilisada ay rabaana soo weydii insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته